mu'assas minhaaj oo aad garanaysaan waxyaabaha maanta dhacaya inay hoggaan u tahay iyagana aaminta ha baqayn allah barakeeyo ilaa waxay noo soo kordhay waa khayr noo soo kordhay waxaan ku gabagabeynayaa dhammaan labada dhinac oo ka soo qayb galay oo sida niyadda iyo aqoonta u tartamay waxaan leeyahay cilmigan allah idiin barakeeyo walaalnimada iyo isdhexgalka maanta waxaa jooga raggii reer garowe maaqa uma taqaanaan majamaqarsha ninkii yaqaan baa yaqaan waa tugii lagu dagaalan jiray waagii 82 iyo waxaa bandar qaasim rig ka socday ee biyo kulle oo walaalo ah runtii isdhexgalka iyo wanaaggaas waxaan leeyahay allah noo siyaadiyo amni bay noo siyaadinaysaa horumar iyo walaalnimo iyo kalgacal marka waxaan leenahay allah noo xoojiyo midnimadaas iyo nabadaas khayr baan idin rajaynaynaa mar hore iyo mar lamaadna inta meesha fadhido maamulka ugu horeeyo iyo aqoonyahanka iyo ganacsiga laba tartamayaasha iyo ahlu khayrka waxaan leenahay goobtaan ilaahay noogu naxariisto aamin dhahay oo khayr allah noogu sii ilaahay noogu dambi dhaafo وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله كاب على مريء الشيخ كلمة واردة ونوس وجدية يسوع كلا فريمة يسي هم بلية يسي وحنا ما هدعنا شركة مال قلنا برنامج كان جولس تلكم سوماليا مؤسسة المنهاج سلام بانك يسوع كلا هريال طبعا waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan ka qaybgalayaasha xafladan ku sugan maamulkeena qiimaha leh odayaashana iyo aqoon-yahanadayna dabcan dad badan oo halkan ku sugan iyo sidoo kale dad daawanaya barnaamijkan waxay isweydiinaysaa SBC maxay ka damacsan tahay maxay tawlijeedkeeda 9 sano ee uu soo wada barnaamijkan iyadoo aan ogsoonahay waxa ku baxaya juhdi ku baxaya dhaqaale ku baxayo waxa soo dhiga SBC maxay u maraysaa su'aashaasi dad badan baa isweydiinayaan u malaynaya agaasimaha idaacadda SBC oo haatan television oo ku soo beeray mudan maxamed Cabdallah Cabdiqaadir ayaan u yeerayaa isaga ayaa kelmadda SBC halkan uga hadli doona ku soo roo mudan agaasime maxamed Cabdallah Cabdiqaadir bismillahir rahmanir rahim dhamaantiin waa salaamantihiin waqtiga yar dartiisa lagama gaaro inaan kala qaadno ama kala ablayno mas'uuliyiinta meesha jooga qof walba si gaar ah ugu mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkiisa waqtigu noo horay dhammaan inta nala joogta iyo inta kale waqtigooda ku bixinaysa inaad daawato ama dhageysato tartankan waa laga wada diragsan yahay muddo 9 sano ku dhow way idaacadda SBC waday SBC taariikh ahaan waa warbaahintii ugu horeysay ee Puntland laga furo idaacad ahaan iyo telefishin ahaan waa warbaahintii ugu horeysay ee tartan bilowda waa warbaahintii ugu horeysay ee TV-ga ugu horeeya idaacaddii ugu horeysay ka furta caasimadda Puntland ee gobolada Puntland marka hormuud waxaan u noqonnay in warbaahinta kale ee waddanka ku taala aanu u rahaano qoladii bilowday sida shirkadda isgaarsiinta golis ay u tahay hormuudka isgaarsiinta gaygan in joognay Puntland runtii waxaa wax lagu faani karaa in maanta SBC oo 15 sano ku dhow ay hirgelisay TV markii ugu horeysay tartan noocan oo kale intuu qabto muddo bila socday dunida oo dhan laga daawanayay burburkii oo dhan wixii ka dambeeyay xaflado munaasabado madax lagu dooranayo live waa laga dhigay laakiin muddo intan live tartan soconaya marnaba suurtagal in live laga dhigo suurtagelintaasna waxaa ku baxay juhdi badan iyo waqti badan oo dhigi karo runtii dadka mujtamaca ee idaacaddan ku xiran qayb weyn bay ku lahaayeen waxaana guddiga weyn u ahaa Cali Cabdiwaare mulkiilaha SBC oo maanta halkan nala jooga tartankan ujeedka laga leeyahay waa tan hadda laga hadlayay oo sheekhu ka hadlay waa in bulshadu isdhexgasho cilmiga la kala faa'iido runtii waa dareemi karnaa inteena maanta halka fadhiday 10 su'aalood ee meesha la isku weydiiyay marka aayadaha quraanka lagu aqriyo laga tago inta kale cilmiga ah waxa laga faa'iiday qofba wax uu ka faa'iiday qofba wax uu kordhay su'aalaha ilowdaha ahaato inta kale ee mujtamaca ee warbaahinta gaarayso oo maanta aan dhigi karo meel aysan gaarayn way maga jirta dunida dhaafaheeda runtii waxaan dhigi karaa iyana faa'iido gaar ah kale u ahay waxay ahayd sidoo kale isdhexgal bulsho maanta dhalinyarada garow ka timid iyo kuwa boosaas jooga inay isbartaan oo aqoon isku bartaan wax la isku barto iyo meel lagu kulmo meelaha ugu wanaagsan bay ka mid tahay aqoonta ujeedkan ka leenahay waxa weeye in bulshadan laga tirtiro qabiilka in laga tirtiro wax kasta oo dadka iska horkeeni kara dhalinyaradu way iska hawla badan yihiin waxa dhici karta in xilliga ramadaanka bil cibaada ah oo aad muhiim ah in qof ka faa'iideysto in wax kale lagu mashquuli lahaa oo aan garanayno 2006 ka horeeyay waxa dhalinyaradu ku mashquuli jirtay ha ahaatay turub meel lagu ciyaaro ha ahaatay in meel la iska yaaco xaaladdu ay ahayd mid fara ku jiray laakiin bisha ramadaan laga soo bilaabo 2006 ilaa hadda mashquul baa la wadiyaa xitaa dadkii barnaamijka la socday nin walba raadihiisa soo dhaweystaa marka la gaaro 9 barka fiidnimo إن شاء الله حرجينا إن نقول عشان شغال علينا هينو وأنا نسوي الدنا إن شاء الله
dad badan baa waxa laga yaabaa taariikhda telefishinka SBC hadda la bilaabay inuu satellite galo inay qaldaan ee yiraahdaan SBC TV ahaan waa loogu horeeyay SBC TV-ga waxay bilowday sanadii 2002 oo aan dhihi karo wax telefishin ah oo burburkii dowladda dhexe Soomaaliya kadib la furay Muqdisho uu ka jiray gobolada kale dalka oo dhan marka la fiiriyo marka sheekayran rabaa inaan ku daro halkaas hadda ka hor waxa dhacday gaari caws ku raran yahay baa nin wuxuu ka saaraa meesha u sareysa markaasuu gaariga baa gadoomay marka ilaahay markiis dadkii marka waxay ogaayeen inuu dusha saarnaa gawaarida ka dib markii la soo gaaray qof baa saarnaa halaga soo saaro intii cawskii la fadhiyay mana cawsku waa kala xirnaayo qayb baa dadku kala lahaayeen geeskaas madaxa kala soo baxay wariyaa cawsku waa la kala leeyahay ninkii nama ha isku darina marka waxaan taariikhda telefishinada waa la kala leeyahay yaan la isku qodin hebel baa soo wariyay hebel soo wariyay yaan la waran taariikhda ugu horreysay telefishin aan furno iyo warbaahin aan furno wadankan laga hirgeliyo aakig weyn baan ka nahay 14 sano wadnaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan muddo u sii ahaano xaafadii haray oo 22 xaafadood kamid ah hareen labana hadda ay nala joogaan kuma aan harin aqoon xumo iyo dadaal xumo waa la beertamay aqoon baa meesha timid waa la tartamay hadda laba qof oo wada midun baa dheereynaya marka baratankii baa lagu kala dheereeyay cilmi la'aan laguma harin aqoon daro laguma harin inta soo baxdayna cilmi ahaan kuma aysan baratankii iyo aqoontoodii iyo dadaalkoodii baa halka keenay insha Allah waxaan rajaynayaa tartamada soo socda ee noocan ka duwanaan doonaan oo ay noqon doonaan kuwa Soomaaliya oo dhan ama meelo kala duwan laga soo qayb galo maadaama hadda meelo kala duwan laga arkayo meelo kala duwan laga maqlaayo oo aanay jirin baan dhihi karaa idaacad iyo telefishin isbuwan maanta oo sidoo kale u shaqeynaya marka laga reebo qaar dawladaha gobolka ay leeyihiin wadanka gudihiisa warbaahinta ku taalaay xarumaynta tirada leeyahay kuma SBC hadda waxay bilaabaysaa inay isku fidiso dhulka ka degsan laamiga oo aanu bishan hadda aynu ku jirna bilaabi doono in xilliga Ramadaan iyo hawlaha kaliska soo garay inaanu bilowno ilaa min baargaal ilaa laamiga isku soo xirno oo aan idaacada dhigno min gaal kacyo ilaa Garowe ilaa Boosaaso inaan idaacada gooyin marka jaanjaraan wadnaa insha Allah xarajeena inaan gaarno idaacaduna ay meel badan higsato intaas oo dhan waxa aan uga mahadcelinayaa oo yara qayb naga ah oo waxa weeye support badan na siiya hadday noqoto facility internetka iyo waxyaalo kale inkastoo rasuulka ay xanto SBC waa gorisna waa SBC waa uga mahadcelinaynaa madaxda shirkadda isgaarsiinta Goris Telecom Soomaaliya oo halkan jooga iyo madaxda intii maqanba dowrka ay ku leeyihiin abaabulka iyo in SBC wixii gacan uga baahato ay ka gacansiiyaan way nooga duwantahay shirkadaha way nooga dhowdahay way nooga saaxiib fiican tahay insha Allah guul baan rajaynayaa dhamaantiin aad baa mahadsantiin dhageysigeena aad buu mahadsan yahay agaasimaha warbaahinta SBC mudane Maxamed Cabdalla Cabdiqaadir طبعا dadka SBC idaacadu may markaa u dhageysan jireen TV-na hadda kor uu soo galay laakiin haatan adduunka kordhan baa laga daawanaya waxaan sheekayran kugu sii daray waxa dhacday maalmo tartanka bilaabay in nin walaalkay ah oo Ingiriiska jooga muddo hore tartanka ugu dambeysay uu soo wacay habeen kamid ah soo tartankaasi live u daawanaya xaafadda New Boosaaso oo xilliga ugu dambeysay dalka uu joogay aan deganeyn ayaa habeenka tartamaysay intii soo wacay wuxuu yiri xaafadda laanta New Boosaaso ayaan ka aqaan xaafadaha Boosaaso fadlan ii sheeg lambarkeeda saan oo caawiyo wixii أنا أقول أن لا أعاون كحافظة نيو بوساسو طبعا حلقة وجود بيس الدولة حافظة سيندقل لأنه ما أدرني واحد صدق وحسورة اللي مدن على عبد أواره وطبعا الشخص جعل إنه ذلك صار مرو قارسيو وهذا أنا سيد بدل كل مدن عن سينا يا مدن فارع حاجي مرد وكتر المسؤولين في شركة إسقاطين تدولس تيليكوم سوماليا وهاي شركة مال جلسة ترتكن شركة أول وين مال جلسة مدن فارع سودو وحنا يا وقت جنا الله سكورو بسم الله الرحمن الرحيم المسؤولين في المأمور كوار اليوم دمياء قبلك مدن يوسف عبد العزيز دوغ المجالة محمد سعيد شغالة وكلها إذاعة SBC سياسي على عبد أواره العلماء والدين مسؤولين في الجوليس بعض الصحافة تحت مياشة كسوغي براشة لما أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مركب ورنتم waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa idaacadda SBC oo isku hawshay siday bulshadooda u gaarsiin lahaayeen barnaamijkan oo runtii muhiimad weyn u leh waxa ugu farxaa barnaamijkan markii la bilaabayay agaasimaha wiil yar ah oo farsamayaqaanka dhalaya la oran jiray inuu muddada intuu soo waday maanta agaasima guud oo idaacadda soo gaaray waxaa ka garan kartaa waqtiga dheer oo idaacaddu soo waday maantana TV-ga lagu daray aad iyo aad baan si gaar ah ugu mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa bulshada kaleeto
oo arrintaas dareensan oo ka qayb qaadata muhiimadda barnaamijkan u leeyahay ee bulshada kow barnaamijkani wuxuu wax weyn ka taraya amniga laanno markii barnaamijkani socdo dadkii oo dhan waxay ku mashquulsan yihiin dhalinyaradii waxay ku mashquulsan yihiin khaasatan inay barnaamijka dhegaystaan inay tartan ka qayb galaan inay kooxaha tartamaya taageeraan arrintaasi waxay wax weyn ka tartay dhinaca amniga runtii waxaan aad iyo aad arrintaa ugu boorinayaa mas-uuliyiinta guddoomiyaha gobolka uu u horeeyo oo amniga xil weyna ka saaran yahay inay muhiimadda ay leedahay in gacan weyn la siiyo barnaamijyada tartamada nooc kasta ha noqdeen qodobka labaad wuxuu yahay daaqoon kororsi 9 sannadood oo tartankaasi socday sanad walba buug baa laga soo saaraa su-aalaha intaa tiro leeg su-aalo gaaraya 1,000 su-aalood ayaa idaacadda SBC iyo shirkadda golis waxay soo wada saaraan buug barnaamijkaas taariikh buna u yahay aqoon ahaanna insha allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka madaxafyada inaan dhigi doono oo taariikhda geli doono su-aalaha intaa leeg iyo barnaamijka intii socday macno weyn buna ku fadhiya qodobka saddexaad wuxuu yahay isdhexgal bulsho waxaa maanta runtii wax weyna garowe tartamayaashii garowe oo 1 Agoosto oo 500 kilomitir ka soo safray walaalada kale la tartamay dhammaantood inay dariiqa uga hortageen ku soo dhaweeyeen u heelanaayeen arrintaasi macno weyn wuxuu kaloo ka qayb qaatay akhlaaqiyaadka bulshada laanna wuxuu la dagaalamaa hiwaayaadkii waagii hore waqtiga ramadaanka laadhu iyo turub iyo dubrad wax khalaaba lagu mashquuli jiray iyadoo bil cibaada waxaa maanta aad iyo aad loogu mashquulaa waa barnaamijka aqoonta iyo horumarka intaas mar raba inaan waqtiga dheereeyo waxaan rabaa maxaa shirkadda golis ku kallifay inay isu taagto barnaamijyadan shirkadda golf marka ugu horeeya waxaa ku kallifay mas-uuliyadda u hayso bulshada shirkadda golis iyo shirkad kasta oo la mid ah waxaa saaran mas-uuliyad social responsibility baa ka saaran bulshadeeda shirkaddu waxay bixisaana waa adeegii ay bulshadeeda gaarsiinayso oo mas-uuliyad ahaa inay ku darto inay arrimahan qabato runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa wadaniyadda iyo garashada mas-uuliyiinta iyo hogaamiyaasha shirkadda golis ay isugu taageen horumarka bulshadooda waxaan sidoo kale u mahad celinayaa hay-adda alminhaaj oo arrintaas iyo arrimaha khayriga ah isu taagtay wax badanna ka qabatay wax badanna ka bedeshay dareenka bulshada waxaan u mahad celinayaa horyaal brint oo kaga qayb qaadatay gacan buuxda ka geysatay adeegka kale sidoo kale waa mahad celinayaa waxaan sidoo kale u mahad celinaya salaam banki iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay waxaan ku boorinayaa sharikadaha ganacsatada aqoon-yahanka iyo cid kasta oo haysta horumarka bulshadooda inay isu taagaan waa mas-uuliyad aakhira la isweydiin doono waa mas-uuliyad bulshada horumar ah waxaan kusoo gabagabaynayaa kooxda guulaysatay iyo kooxda laga guulaystay midkoodna si gaar uma guulaysan dhammaan waa la wada guulaystay tartanku sidaasuu ahaa waxaan rajaynaynaa inuu dardabku kor sii kaco aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أدو ما سيها مدن فارح حاجي ميري أو كم إذا مسؤولين شركة جوليس تيليكوم سوماليا ولي واحد أولي صندوق ديال ترتنكا سيدا لقيتو قبل برامج شركة إسكاربادان كيس بي سي قبط هاي دور باين الصومالية وحنا كوكو دجنا ولي كلمدي مالجرياش ترتنكا وحن سيني يا شيخ عثمان محمود حاج در وهذه دورهم طبعا مؤسسة المنهاج دعوة إيه هرمرينتا وواحد بدن طبعا وقبتي شعب كبنتنا شيخ عثمان سولو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد ما بعد أنت كبعدي وحان سلام يا وسلامة الإسلام كان كسلام يا أيوة الريان مامورك قبلك قدوميها قبلك قدوميها دقمدة ما هو مامورك شركة جوليس maamulka muasasada minhaaj maamulka hawaya horyaal printer iyo waxa weeye guddigii garsoorka oo shaqo fiican hayay iyagana waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa waxa weeye maaha gudoomiye ku-xigeenka oo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee rugta ganacsiga dhammaan waxa weeye raggii tartamayaasha iyagana waa salaamayaa iyo dhammaan ikhyaarta ka soo qayb gashay inay tiro leeyihiin waxaan ku salaamay salaanta islaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa ka bacdi waxaan rabaa madashan qiimaha badan
madal aqooneedka ah intaas oo khiyaar oo sharaf oo qiimo badan isu keentay ayaan waxaan rabnaa waxa weeye qolo kasta waxa weeye waxbaa soo kiciyey anigu markaa waxa weeye ku hadlaya afka mu'asasada alminhaaj lidacwa tanmiya sababta annaga waxa weeye na keentay waxa weeye dacwadu kelmadda mu'asasada marka laga sheekeyn laba qodob bay leedahay waa dacwa iyo tanmiya labada meesha baa ku jirtaa waxa weeye dacwadiina waa ku jirtaa waxa weeye asaaliib badan baa dacwada loo adeegsanayaa loo adeegsan maayo keliya in waxa weeye ama qofkii la wacdiyo laakiin tan ruuxadeedu waxa weeye waa asaaliib ka mida dacwada in wax lagu guto oo ummaddii khayrka lagu gaarsiiyo ummaddii xumaanta lagaga reebo waa ujeedooyinka hadafka ay waxa weeye mu'asasada minhaaj ay leedahay xagga tanmiyada qofkii horumarintiisa iyo aqoontiisa kor u qaadideedana ama waxa weeye arrimaha bulshada waxay ka shaqaynteedana waa qodobka labaad ay leedahay mu'asasada minhaaj taa marka waxa weeye qodobka annagu aan u taaganahay iyo shaqada aan ummadda u hayno sida waxa weeye raggii kale waxa weeye ay sheegeen iyana ummadda waxay u hayaan oo saxa waxa u hayaan waxaana markaa taas waxa weeye ummaddu waxaan u haynay waa taas iyo sababta keentay inaanu ka qayb qaadanno sababta keentay inaan hawsha aan wax ku yeelanno sababta keena ugu dhiirigelisay sababtaan meesha u nimi qaabkaa weeyaan taa markaan kasoo gudbo waxa weeye tii mu'asasada weeyaan tan kale waxa weeye aad iyo aad waxaan mahad ballaaran aan u jeedinayaa oo aanay aba mahaddaas waxa weeye bacd allahi subxaanahu wa tacaala shirkadda golis oon isleeyahay waxyaalo badan iyo shaqo badan oo ummaddan waxa weeye noocyadeeda kala duwan iyo jaanibada kala duwan inta aanaan ka hadlay in la eeg iyagana qabanaya waayo shaqo kastoo aanu qabanayno waxay golis nagu tahay tan waxa weeye nagu saacidaysa oo noo fududaynaysa sidaa uu sheekh axmed yuusuf daad uu sheegay horreeye uu sheegay yacni arrin kasta oo khayriya arrin kastoo waxa weeye ummadda waxa weeye wax loogu qabanayo waa lambar one ayay ka tahay waa u ducaynaynaa ducadii sheekh ayaan la qabaa ilaahay waxooda ha u barakeeyo waxooda waxa weeye cimrigooda iyo caafimaadkooda iyo caqligooda intaba allah u barakeeyo fi aakhiran allah liibaano taas waxa weeye ducadii waxaan raggii aamiinta inaan lagala baqayn waa sidii sheekh axmed sheegay ta labaad waxa weeye SBC waan isleeyahay waxa weeye telefishin ha ahaato ama idaacada ha ahaato waxa weeye waa xaliifkayaga ama waxa weeye bahwadaagtayada waxa weeye annagana waxa weeye golis markaa laga reebo nala bahwadaagta ah oo shaqooyinka khayrigaanu qabano wax nagala qabta iyagana waa u ducaynaynaa oo ugu horreeyo waxa weeye mulkiilaha cali cabdi awaare waxa weeye oo shaqadaas shaqo fiican ummadda u haya waxaan dareemayo dareensiinayaa waxa weeye tii ugu dambeysay waxaan meyd maxaa u dambeeyey kaan la sii sido war maxaa u dambeeyey hadda tartankii qur-aankan soo qabanay SBC qayb libaax ay ka qaadatay lama sheegin laakiin waxa weeye dhaqaalihii aan wax ku fulinay qayb ayay ku lahayd sababta waxa weeye iyadaan fundraising ka samaynay iyagaa hawsha waxa nala qabtay waa aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin shaqo fiican dhali tiimkii ka shaqaynayay aad bay ugu mahadsan yihiin oo noo soo jeeday laba habeen iyo in ka badan baa hawsha nala qabtay aad baan ugu ducaynaynaa weligaa aan ugu ducaynayna biidn illah taa markaan kasoo gudbo qoryaal waxa weeye waa waxayaan waxa weeye oo aad ummadda ugu shaqaynaysa iyadana waa u ducaynaynaa shaqooyin badan aan wada qabanno oon xalin wada nahay aad baan ayaan ugu ducaynayna waxaa intaa markaan kusoo gebagabeynayaa guddigii hawsha waday oo in badan hawshaas waxa weeye iyaguna ku taagnaa oo waxa weeye garsoorka waxa weeye u soo jeeday bishaas iyagana waa u ducaynaynaa oo cadaaladdaa sameeyey waxaan leenahay allah barakeeyo cimrigooda allah barakeeyo carruurtooda allah barakeeyo dhan walba allah ka barakeeyo intaas iyagana waxa weeye ugu ducaynayna shay ka qaalisan oo lagu ducaeyo jannada allah geeyo waxaan kaloo iyana kusoo gebagabeynaya kusoo ururinayaa tartamayaashii waxaan is leeyahay waa raggaa waxa weeye dadaalay ee aqoonta ku dadaalay ee ku tartamay wax kale lagu tartami jiray ama qabyaalad ama wax kale ama kubad ama ciyaaro ama filimo laakiin maanta waxa weeye aqoon baa lagu tartamay cid un baa kolay ku guulaysan doonta kuwana guushay ku sii xigaan iyagana allah barakeeyo intaa ayaan ka baxay asalaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مركل وحنا عدسنا وقت قال سوق كوبو طبعا 3 دقيقة يا هات وحي كدن بيجو قرن وريال ينو يريا محمد حرسي طبعا كلمة وريال لوجو هذا الدورة وحنا ما هدعلنا يا تيم كان كوسوغن هوش هذا جنوها هي إلى إحساك حل يعني من نبغنا يسلو كله تيم كوسوغن SBC بوساسو يمجالو يكله كنتران يسلو كله استدياش يعني كله دوام بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله. أولا وعن هذا الله سبحانه وتعالى أن نسوك يعني أن فرحت له أنت كتب وحن مع هذا لما مرتشرفك كسوق القريات وضياش منها الدولة كتشوغا بعض الصحافة هوينك لما منها كالدوان ورد كالدوان المشد أنت كتب وحن مع هذا تيمكي
aan ku mataanaysnayn daadihinta barnaamijkan ay ugu horeyso hay'adda warbaahinta ee SBC shirkadda Golis Salaam Banki dhammaantood waxaan leeyahay waa salaaman tihiin waxaad tihiin saaxiibo waxaan ciyaartay intaa kadib waxaan u mahad celinayaa 24 xaafadood ee ku tartamayay bisha Ramadaan ee kadis dhammaantiin waxaan leeyahay waxaad kororsateen aqoon baad kala naftiina u kororsateen waad kala kororsateen waxaad u faa'iideyseen bulshadiinuna waa inay ogtahay hambalyayeena intaa kadib waxaan rabaa sidaas waxaan leeyahay horyaal ahaan anoo ku hadlaya madaxa marketingka horyaal wayna garab taagan tahay horyaal way ina dhiirigelinaysaa horyaal waxay rabtaa sacbada inaynu ku qaado laakiinse hal mid inkastoo waqtigu ciidigu yahay oo wax badan aan sheegi lahaa horyaal laftigeedu maxay tahay hal daqiiqaraalla walka jawaab ku tarsanaya waa idiin sheegamayo warkeedu de suuqu yaalla inta hadda joogtana insha ayaa u macalina waxaan u malaynayaa laakiinse weli waxbaa daqson maxaa daqson su-aalaan weydiin lahaa laakiin waxaad u daaranayaa waxaad ogtihiin dadkiina taariikhda akhriya qarnigii 13aad dalku caalamku sidaas dagaalada sukaya aynu soo wada marnay ayuu soo wada maray waxaa jiray caalam markii ay taariikhdu 13 markii ahayd qarniga milaadiga markuu ahaa waxaa jiray wadamadii burburka ku soo dhacay oo hadda caruurteenu ay badda isugu shubto inay halkaa gaadho oo waqtigaa halakan marayay wadamo gaara ayaa cusuuru naxda loo aqoon jiray dadka taariikhda yaqaan si fiican bay u yaqaaniin sabab ayay kaga baxeen sababta ay kaga baxday waxaa ka mid kow ka ahaa waa waxa ay sumadda ay horyaal u taagan tahay waa waxa loo yaqaano inkastoo sa dhammaystirnayn waxaa loo yaqaano warshadaynta inaad adigu wax la soo baxdid inkastoo aanu qayb bannaanka ka keeno inaad adigu wax farsamaysatid wax la soo baxdid taas ayay sumad u tahay inta hadda aragteen taa ayaa kasii dambaysa waxaad ogtihiin oo kale oo tusaale xayayni ah anoo aan ku dheeraanayn dalka Iran hadda caalamka dalalka quwadda weyn inay gorgortan kula jiraan intaas oo bilyan baan siinayna fadlan joojiya warshadaynta maaha bris fara badan ay soo saaraan iyo digri bannaanka dhoofiyaan waxaa lagu haystaa waxa weeye waa warshadaynta waxaan leeyahay xurashadii horyaal waa horumarkii Soomaaliya ayaan leeyahay intaas kadib iyadoo leeyahay waqti waqtiga waxaan leeyahay haddaba saa markay tahay saa haddaynu garanay laba qolo ayaan rabaa mid walba baaqina u diro dawladda waxaan u dirayaa mar hadday saasana isla ogaanay ay muhiimkaas ay tahay qolada hogaaminayso in ay dawladdu ay isgarab taagto qolada wixii warshadayn ka socda ama ha ahaato canshuur dhaafis ama ha ahaato dhul ay bixiso mustaqbalka fogna wixii haddii warshadayn la samaynayana laba qodob ayaa muhiim waxaa muhiim ah in waddanka khayraadkiisa uu muhiim yahay oo la helo waddankii aad u suuqgeyn lahayd iyo siyaasaddii labadiiba waa haysanaa kalluunka baa ka mid ah cusbada waddamadana waynu ognahay Afrika inta ugu faraha badan aadeen baa dawladda kaasaan ka codsanayaa dadka waxaan ka codsanayaa maxaan ku yiraahdaa bulshada iyaduna inay isgarab taagto laba quraan waa dhulkaaga hooyo sariya dhul isma horaaniin inay intay waddan fog waxa qaltaagi lahayd inay waddankeeda maal gashto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة دي أنه يسهل الكمسي بديكرة وحنو يري مدن بدر حبيب وسلام بانك مدن بدر حبيب سودو وكم إذا مارجلياش برامج كان سودو مدن. الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين ولا عدوان للظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دمان وحوي مدحدا هي أنت كلبا وين السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول ماشي كلية حقيقته waqti badani ma jiro runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya dhalinyarada waxa weeye muddada inta la eeg oo bisha Ramadaan tartanka ku soo jiray raggii guddiga ahaa oo u soo dhabar adeegay oo inta runtii u soo fadhiyay idaacadihii baahinayay intii maalgelinta ka qayb qaadatay dhammaantood waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankiina xasanaadka ha idinkugu daro waxa weeye Salaam Banki taariikh uma baahna وبنجاز أتقرن إنسان بلشة وحول قبتينا لبد أكسون يحي
marka waxaan leenahay waxa weeye da'yarta iyo inta kaleba ku soo dhawaada salaam iyo adeega uu idin hayo iyo waxa uu runtii bulshada u hayo oo qof kastana uusan runtii uusan moogeyn marka waxaan leeyahay waxaa kolleyba sharaf noogu filan hadda inaan mashruucan iyo kuwa la midka ah u taagannahay inaan ka qayb qaadano warka badin maayo waxaan leeyahay insha Allah intaas ayaan ku dhaafaya wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أدو ما سيء مدن بدر حبيب وسودان لوجو سو كوبي داوديال يدق استيال وحسيت وصلنا جلسوا التوربعين SBC حفلة داون إنسانا وقبل ترتن كريس كبيش بركيسن رمضان قبل هاي دوربعين الصومالية SBC طبعا ذاتك مسؤولين حلقة هذا الشغل وحوم هاد علينا SBC وحي أمانين هرمر كبلارنا SBC كذا وحاسي وده وحكدنا بمدن على عبد الوارث إسقى يمسوا دوينا يا سياسة على عبد الوارث يوسف يقدبيه مدحضة كله قبل كيا تقام مقالة بوس أصلا سياسة يوسف وريشيو مدن على عبد الوارث يمسوا دوينا يا مدن السوداء بسم الله الرحمن الرحيم marka hore guud ahaan waa salaamaya madashan inta fadhida ee ka soo qayb gashay munaasabaddan tartanka kediska gaar ahaan waxaan aad ugu hambaliyeynayaa xaafadihii ku guulaystay 1 iyo 2 kolley guddiga sheegi doona waa u hambaliyeynayaa dadaalka ay muujiyeen iyo 3 oo hadda halka aan filayo inaanay fadhiyin laakiin sidaan dhegta ku hayo ay ku guulaysatay xaafad ka mid ah degmada Waaciye marka 1 iyo 2 ay halkan kolley guddigu ay ku kala qeybi doonaan aad baan ugu hambaliyeynayaa waxaan runtii aad iyo aad uga mahadcelinayaa mas'uuliyiinta halkan sida ay noogu shaqeen oo uga soo qayb galeen xafladan oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Bari Dr. Yusuf Maxamed Wacays Dado iyo duqa magaalada Boosaaso Maxamed Saciid Shabeele Bacol aad iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa mas'uuliyiintaas runtii iyo gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Puntland dhammaanba iyo mas'uuliyiinta kale ee ka kala socota qaybaha kale shirkadda Goolis iyo shirkadaha kaleeto iyo hay'adaha kaleeto oo ka soo qayb galay oo abaabulka hawshan iyagu guddiga u ahaa oo muddadaas 9 sano sida hadda la sheegay soo waday in yar baan rabaa inaan ku cayiliyo SBC taariikhdeedii iyo agaasimaha ka soo warramay iyo mas'uuliyiinta kaleeto laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin maantay waxay joogtaa inay baradheer tahay TV-yadii Soomaaliyeed ee satellite-ka ay ku jireen markaan leeyahay waa baradheer tahay waxay baradheer tahay TV-yada dhammaan waa TV kaliya laakiin SBC satellite-kii bay idaacad ahaan iyaduna ugu jidhaa oo qaybta audio markaa tagto TV-na markaa tagto haddee tartanka way kula jidhaa TV-yada kale waxay sii dheer tahay oo baradheeraatay qaybtii idaacadda oo iyaduna satellite-ka ku jidha marka idaacaddina satellite-ka ku jidha cod ahaan qofkii raba meel kasta oo caalamka uu joogo waa u dhagaysan karaa Taikomka iyo iyadoo aragti ahaanna uu u daawan karo marka waa maqal iyo muuqaal waxaan leenahay insha Allah intaana waa ka sii badin doonaa dadaalka oo FM-yo badan baan gaarsiin doonaa guud ahaan Soomaaliya oo dhan insha Allah oo qorshaha noogu jira qaybtoodna hadda la keenay oo deegaano badan hadda aan rajaynayo inaan wada geyn doono insha Allah iyadoo laga faa'iideysanayo xiriirka satellite-ka hadda idaacaddu ay ku jidho oo looga gudbin doono dhinaca satellite-ka degmo kastaba marka aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu hambaliyeynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa duqa magaala madaxda gobolka Bari Boosaaso Maxamed Saciid Shabeele bale tafadal assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم مدريال مروي وحن لما كنت السلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحن هذا يا الله أول بدن إنه أقول هذا
إننا هلكا كحفر ليسنا وإننا نجوبنا مدة إنت لك الحمد لله رب العالمين. إنت كده مناسبة هلكا يسكن لي حفلتي كده كرمضان كSPC ومدة بنزول تعطيك بالولدي وما تسوق رعبتي. هذه بنقول بقولنا كوح صوت التمي وما أنت لا ولا حافظون اللي لما تكتون الدماغ بوصاصه يكون عبوس يكون لما كانوا عسمان لكم فلان يكون لما ين ولو عمرين تجدي كمان ما يستاهل لأنه شيء لكن اللي بدنا ورا المرة كل بدون باكولستين ورقوق كسين دونا كان أنا وحنا كان طلبات بقولنا يا ترتنك أي سوق لين وصلوا كولستين دموين محافظية لسه تجتمعي وما أنت نتيجة رفضنا سيجارة وحنو شيء أهمية أي أولى هاي مناسبة ثانية لأن يرى واحد تقدر يمكن وقت كبرن السي السوودي الجودة رفي ما الله رأي إنه برنامج كان في الدولة وأهمية أروها إنه لليتها خير فلان بربارين تولا أقوم تولا مسؤولية بسيطة هو بالله أي وقت أنت على ونفي ما الله رأي لأن يرى أنت فردا أنت كسوق قاتي هي أنت ما قشبا وحنو شيء جاية إن أقدر إيمان سيدا إن مسؤولية الدولة شعبكي شرائكي جناسبة إن وربعه مسؤولية صارت هاي إن أهمية وين وهيسو كأنت غيرنا مو أمدا غير بتلان يكون جرا من حركات أنت أكيد وحن ربنا برنامج مدرب بالنسبة لي مدرب على سلوكاتي وحمرة قبل إن عربية يروح قدوميها قبل كباري يوسف محمد وعشنده في نقصه قبل ويوسف أفتره برنامج كي صوت حنا مدرب الله ربنا كسبنا السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لغة مقالة وكيلها راديو العدل SBC سياسي وين على عبد عوارة ملاحظ شركة بوليس شركة هوريال بنك سلامة بانك كاسو بنجلياش على وضع حافظات يوم تشارك وكلا حفلة السورية وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أنا سلامتك بحين وعايزي أنا اللاوي بالله يجي قوة ضبولي عيشي قولك قوة ضبولي عيشي كل عايز ذاك كجري قوة وعوي قعدتك ذريعي مؤسسة المنهاج يلا سيجار بانو سلامة. هذا أنت هذا هل كان وعوي حفلات بالو قبتي وجبدي تردنكا أقون لما أراك الأقون بالو كلا بولستين وعوي هو كيس أقون بعد ريليتد ولا هاي وعكريه أو ماشي على وعوي قفوا سيدو ديارتين هل سؤاله يربع المسيين هيا كوني السجال بقول سجاشن يلا دي بانقل الجبين اللي كمسري عن معاذ فوق الجبين بيولوجي مالك أنقل الجبين هاي وعلى المالك يقول أحد بدر وجامعة أمة الله إمارة يا فقول بذلك الشيء وأبوه بالتيسي معاذ هركينيسا سؤال شيء يقول كي يقول لي ويجيو أداني مكين شيء ودوا قصريسا وعلى ويجي فيها كلر كود والكلر كي فيها وليه شيء معليه كلر كود ماله كلر لسوما وماله وأولس كم بيسيجي معي كقوانت هاي وحنا فيلا يروح على ويجي باكر الله مركا مرة وعي نقول كرا وعي روح كيف مرة وعي نقول كرا جوا حد مرجع وسجلت لي الله بدي ورجع بيقص توا سيرها على وعوية فاهم روح برسول كسر جدي ولا في المعلم هو هذا الجامعية قائد معاهد التجاري بكان يرام بان كوكا كوسيان بوساس وبرمو وغيره كان هذا دافو وعنفو رينا يا
idaacadda iyo radio SBC sidaa ogtihiinba ganacsatadii reer Puntland nin xoolihiisa wuxuu gashaday dibiyo iyo maraakiib iyo bariis iyo baasto ilaahay iska daayo cali cabdiawaale wuxuu gashaday radioga iyo muxuu ahayd telefishinka waxa weeye dadkii buuna u qaybiyey mid guri jooga mid digaal maraya mid gaari ku jira mid muxuu ahayd mobile sita intuba inay muxuu ahayd caalamka iyo akhbaaraadka la socdaan isagoo hantidiisii loona ma gashan bariisna baqaar kuma xiran idaacaddii ugu horreysay 16 Juun 2001 waa xusuusnahay ayaan siiyey laysinkii ugu horreeyay anuu duqa magaalada Boosaaso maalintaa waxaa laga yaabaa cali gadaasheedu fadhiyaa gargaar badan buu rabay idaacaddii ugu horreysay oo 3 gobol ka wada hadashay ahayd inaan muxuu ahayd cashuurta ka daayo kaana ii furbuuyey waxaan meelaan cashuur bixin cali oo muxuu ahayd furi maayo horta cashuuriga gooso laysan qaado dabadeedna waa ugu tegay waa furay isagoo laysan goostay horta ilaa maalintaasuu ku soo jiray waxaan leeyahay cali muxuu ahayd maanta xafladaan oo kale la'aantii in badan ma qabsooteen 9 sano bay kayska la soo waday xagga maamulka markaanu eegno gobolka iyo degmada waxa weeye amnigii bay nagala qayb qaadatay oo ogtihiin 27kii muxuu ahayd bishii shanaad baa la magacaabay waxaan u malaynayaa wax shil ah oo dhib ah inuusan intaa muxuu ahayd dhicin waxaan filayaa isbartiibadaynu ku wada tukan haddaan dadku kadiskaa ku jirin haddaan dhallinyaradii muxuu ahayd biisi ahayn haddaan amnigii muxuu ahayd nalagaga shaqeyn oo idaacadihii iyo raadiyaasha ay ka shaqeeyeen dee maantaba halkan xafladdan kuma qabanin garoowe muxuu ahayd xaafad ka mid a halka ma timaadeen xaafad boose ka midna garoowe ma tagteen shirkadaha isku howlay oo kow ay ka mid tahay golis waxaan leeyahay waanu u ducaynaynaa uli amar baanu ilaahay waxa weeye aqoonta iyo maalka intaba ha u siyaado kuwa kaloo ka qayb galana ilaahay ha u siyaado waxaan leeyahay golis wada waxa weeye meel kastoo wax laga qabanayo waxa weeye waxbaa ka qabateen innaga qaxooti bay nagala shaqeeyeen hadday tahay xag dhoofineed hadday tahay xag isgaadsiineed iyagii muxuu ahayd wadaadada alminhaaj mar labaadba waxaan leeyahay golis aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkadaha kaloo ka qayb qaatay oo masalan radio iyo telefishinka SBC Salaama Bank oo adeeg wacan haya iyo horyaal intaba waxaan leenahay sii wada oo muxuu ahayd ka daalin SBC golis waxay hadda wadaa barnaamijkii muxuu ahayd dugsiyada sare kan waxaa ka horreeyay tartankii qur-aanka maxaa ka weyn ama qof bini aadani muxuu ahayd uu qaadan karaa oo muxuu ahayd ka weyn in kitaabka jaamaca inta la kala furo laba eray lagu yiraahdo yaa laba eray lagu yiraahdo wadasma billahi jamiicna ay halkaa ka wada aayaddu ugu horreysay muxuu ahayd nebi muuse iyo haaruun faquulu qawlan layinan aya balwad maxaa ka weyn inaan yaroo 20 jira markuu halkaa ka wado maanta la wadaa waxa weeye ilmaha isku soo kaa taagay waxaan leeyahay labadiinana ugu horreeyo qur-aanka rabbigay caqliga iyo maanka iyo aqoontii rabbigay haynu siiyay waayo waxay u muuqdeen laba inaan oo xaafidul qur-aan ilaahay baa ka jisay doona siina wadaan leeyahay waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan jeclahay meel kastoo aan noqono waxaan ka xusnaa waa amniga in amniga laga shaqeeyo dhallinyaroy amniga laga shaqeeyo la iskaaga dhinac taago kan xulee tuuga ee maxaa ahayd mujrimka ah nalala soo qabto waxa laaliya wixii markaa gacana oo dhallinyaradu nooga baahdona waxaanu ballan qaadaynaa in aanu muxuu ahayd fulino in aanu garab istaagno ilaahay idankii intaasaan oran lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته قدوميها قبل كبر دكتور يوسف أدو محسيها قدوميها قد جاي ينقصوا دوينا يا سنة نتيجة ترتك على كاس كداعي فوق دواقة قدومي بسم الله الرحمن الرحيم أنت النتيجة كل دواقين محرم إن شاء الله تعالى إن انكهر مريم هلا ذكري
أنا هل دقيقة كبر من نقولنا إن شاء الله تعالى ترتم جيتو السعودي أفريقيا حافظات حافظ كاملة ومدارة القصاص وأنتي جوديو وحتى أنا الله برا meeshaani dadweynaha hortooda weli lama hayo qof maamula ah madaxweyne ilaa agaasima inuu yidhaahdo waa qaldana shacabkeena u qaldana hadda laakiin waxaan haynaa natiijo cusub oo dhegeyna ku cusub indhihina ku cusub guddiga kayska bisha Ramadaan xaafadda New Boosaaso waxay xaafadaha ka tirsan magaalada Boosaaso runtii waxay ku jiri lahayd xaafadaha soo baxay qalad guddiga uu galay aan anigu ugu horeeyo bay ku hartay xaafadaasi New Boosaaso qaladkaasna guddigu waa qisan yahay si qalad loogu bareeran ma ahayn qalad farsamo dib dambe laga ogaaday bay dhacday New Boosaaso boqolkiiba boqol arrintaa raaya ka aato labada xaafadood ee Qardho Shimbiraale iyo Xingood runtii qalad weyn bay naga galeen waxaa lagu tartamayaa tartanku inay mujtamaca isdhexgalaan laakiin xaafadahaasi waxay sameeyeen wax sharciga aan waafaqsanayn xaafad ka mid ah laba xaafadood baa isku dhacay oo Kaambo iyo Xingood ila ajligooda waxay ugu baxeen tartankii labada xaafadood Shimbiraale iyo Xingood inkastoo Kaambo markii kadib raaligelin naga bixisay waa ganaax muddo 2 sano haddii soo noqonayaan waxay noqonayaan inay jabtaan 2 sano oo waxay bixinayaan $1,000 ee maanta xaafadaha mid kamid ah la siinay haddii kale 2 sano ay maqnaanayaan degmada Qardho labada xaafadood insha Allah ta'ala natiijada ayaan ku dhawaaqaya xaafadda 26 Juun intaynu ku jirnay cawashay soo gudbistay cawashadaasi waxay ahayd معركة القادسية مركي لبارانة وحاس أحسن جواب تيجي سكوت أغسطس واحد كانوا جواب كأنين قرآن كسيري سوى إبر لما قرن كرو أنت مجدي بدنيا كأهانة واحد هاي قفك هدوء قفو والله ما أدور يدور شيء هل دي عنسينه قرآن كمامنا إن إبر قرآن سيدا سهاي نتيجة هذا كله واقع حافظ لحلا تكجون شنت السؤال حق ولا هاي waxay ka jawaabeen 4 su'aal oo min laba dhibcood ay ku heleen oo 8 dhibcood halka kooda Agoosto ay ka jawaabeen 4 su'aal oo min laba dhibcood ay ku heleen iyo hal su'aal oo hal dhibcood ku heleen oo Quraanka oo 9 dhibcood halka guush ay ku qaaday kooda Agoosto kaalinta labaad waxa gal 26 Juun degmada Boosaaso kaalinta saddexaad waxa weeye gol Janawaaci وليه واحد كم أنت لو حافظ هالكان تاعي قول جنواعية سدح سنة وجود دمبي واحد قال كارنت سدحات وقول جنواعية وكم أنت هاي لو حافظت سدح سنة واحد قال كارنت سدحات سنة كهذا وجود دمبي صندوق باب قلب كارنت كواد كشيء كارنت لو واحد قال كل يوم سمع وواعية يقول جنواعية ما إن شاء الله تعالى أنت وأنا أرى لها وبلا سؤال شهادة الأولية هاي ولا هالكان كل القادسية عداية أولية حتى أنا واحد من مرة كأمسو شرعي وحنوها إن أنا بو كتاب موبل من هاي لحلا تبجون أرنتاس ويقول دنت واحد نوكل الكتاب وهلك فقرا من منين جواب تونا صح معهن تنكلم وين إنه ما هاي إن كتاب نوكلنا كل تنلبات وقت والله حتى وقت من نوكلنا وحمر الله لحلا تبجون نظام خلالية هلك سكوت هاي كود أغسطس أنت كتابنا صدر نوكلنا أيضا وحاول تهن وعسلهين لحلا تقدم يصوب حياة كود أغسطس ومقالدين بوساسو عدالة على تسيكود علي خير بدل ما يرجعنا هدي ما أنت لحلا تقدم بدل هايين وحاول قدومي قول كفدي قدومي دمنا فدي شعبي أرمال نجاهدي كود أغسطس سبحان الله وبالله السلام عليكم بدي كسر رمضان كا وبوبسيننا وقت ما تشرو حسات قدك وحنا نوقف صبيرة وحير ودرنا سيننا قدومي قبل كنوقال عبد الله عيسى أحمد قدومي سوكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والمغرب صاحبك صوبان سوى نفسنا هذه أكبر السلام يا جماعة وزيرنا نيو ملاحظة ثلاثة قدومية كي قدومية تكمل اليوم وزير لي على عبد
cabdi awaare oo isaguna muxuu ahaa mulkiilaha SBC guddiga tartanka xaafadaha madaxda shirkadda golis iyo mas-uuliyiinta kaleeto fadhiya dhalinyarada ama xaafadaha ama dhinacyada tartamayay kuwa guulaystay iyo kuwa guusha ku xigay dhammaan guulaystay nin kastaba maaragtay kasoo qayb galay aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib runtii waan idin hambalyeerayaa dhammaantiin guusha ammaan soo gaarteen muddada badan oo aad soo wateen hawsha hadday noqoto guddiga iyo hadday noqoto hay-adihii maalgelinayay iyo hadday noqoto idaacadda iyo TV-ga SBC iyo hadday noqoto maamulka magaalada iyo gobolka dhammaan intii kasoo qayb qaadanaysayda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay dadka banaanka ka jooga oo gobolada iyo degmooyin kala jooga runtii dadaal weyn oo wadaniya baan u aragnaa waana ku faraxsannahay intii ka shaqaysana waxaan leenahay ilaahay dambiga waa ku dhaafo dhalinyaradii iyo dadkii iyo aqoon-yahanadii iyo xaafadihii kasoo qayb galada tartanka ka qayb qaatayna oo sida xushmada iyo asluubta leh uga qayb qaatayna waxaan leenahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin si gaar ah anaan ugu faraxsannahay in maaragtay kooxda maanta maaragtay qaatay koobkii ayaga kulligii la wada guulaystay oo wax kasta oo tartanka soo gashayba aan leenahay waa guulaysatay laakiin guusha ayaa lagu kala horeeyey kuwa hadda maanta lagu hormarayo dabcan socdaha iyaga ku hormari doonaan isku dayga ayaa guul ah warkayda ku dheerayn maayo waxay keliya inaan idiin mahad celiyo aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa anoo ku hadlaayo afka gobolka Nugaal waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعشرة ورحمة الله وبركاته وبحسنتها مدن قدومية وحمد لنا بحنتي عديده iyo hawshii gabagabadii hada lagu dhawaaqay waxaan hormarinaynaa oo ka soo bilaabaynaa kaalinta anshaxa oo xaafadda New Boosaaso loo gartay waxay heli doonaan check shahaado sharaf iyo bilad madaxa waxay leeyihiin shahaado sharaf iyo check hadda lagu wareejinayo xubnaha madaxda